madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wafdiga madaxweynaha ayaa waxa kaga hortagay deegaanka Kalagsharka oo ku yaala waqooyiga magaalada Burco dadweyne tiro badan, mas'uuliyiinta degmada Burco, mas'uuliyiinta gobolka Togdheer, xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, madax dhaqameed, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Burco oo madaxweynaha iyo wafdigiisa qaabil ayaa u soo galbiyay magaalada Burco iyada oo madaxweynaha intii uu soo gaaray aqalka madaxtooyada Burco dadweynuhu ay ruxayeen caleemo qoyan calanka Soomaaliland iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqayay ereyo soo dhaweyn ah. Wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay soo gaadheen fagaaraha hore ee aqalka madaxtooyada waxa ay kula hadleen dadweynihii isugu soo baxay fagaarahaasi. Ugu horeyn waxa ka hadlay madasha soo dhaweynta maayarka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, kuwaas oo ku soo dhaweeyay magaalada Burco madaxweynaha iyo wafdigiisa sida qiimaha badan u soo dhaweeyay madaxweynaha qaranka iyo wafdiga uu hogaaminayo. aad baan idinku mahadnaqay. taariikhda inta la og yahay waa soo dhaweyntii ugu mudnayd ee ugu quruxda badnayd ee ugu qiimaha badnayd. soo dhaweynta maanta ha u samayseen madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi. Soomaaliland waxaanu dheernahay wax ilaahayna dheeraysiiyey baanu dheernahay. socaynka maaha madaxweyne halkan maanta aad joogtaa waa Burco, waa gobolkii Togdheer, waa halka madaxweynuhu uu ka tis qaado. markii horena waa ku dooran, maantana waxaanu leenahay waxa muuqatay taageerada iyo kalsoonida ay kugu qabaan ummaddii ku dooratay iyo kuwii aan ku dooran labaduba taageerada ay ku hayaan baa maanta halkan ka muuqatay. madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta safar inoogu yimi, safarkaas oo uu ugu kuurgalayo xaaladda nololeed, xaaladda guud ee dhabta ah ee ka jirta gobolka Togdheer. dadka reer Togdheer waxay maanta muujiyeen wanaagga, qalbi furnaanta, kalgacayltooyada ay u hayaan madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. geesta kale iyaguna waxa madashaasi ka hadlay wasiirada horumarinta caafimaadka iyo arrimaha gudaha. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, xubnaha golaha wasiirada ee wafdiga ku weheliya, madaxda ciidamada, generaalada, taliyayaasha ciidamada la socda, mas'uuliyiinta kale madaxweynaha la socota, gudoomiyaha gobolka, maayarka magaalada, salaadiinta, culimada, odayaasha, dhalinyarada, haweenka reer Burco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعا مانتا waxay xasuusinaysaa in ay maanta ilaalinayso taariikhda iyo halganka hormuudka qaybta ay dalka kaga leedahay in mar walba la ilaashadana aad iyo aad bay ayay taariikhna ugu tahay aadna ugu fiican tahay. madaxweyne waxaad halkan maanta ku arkaysaa indhahaaga magaaladii Burco loo kala harin iyadoo mid ah. Burco daaban kala lahayn, baarlana kala lahayn, mucaariye muxaafid kala lahayn ayaa dhammaan gacmo furan kugu soo dhaweynaya maanta. ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo la hadlay dadweynihii isugu soo baxay soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha ayaa uga mahadnaqay soo dhaweynta ay u sameeyeen, isagoo madaxweynuhu ka hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga, doorashooyinka, shaqo abuurka iyo sidoo kale xaaladaha mandaqada Geeska Afrika. marka la leeyahay madaxweyne soo dhaweynta madaxweynuhu hebel maaha, xisbi gaara maaha, waxa uu saastaantii qarankiina soo dhaweynaysan dhammaantiinba waa ku mahadsantihiin. waa wadhegeysta dad baan ahaan Burco way ku mudaharaadaysaa. horta walaalayaal mudaharaadku hadduu salmi yahay oo aanu khasaarayn ugu dhalinayn, ra'yigaaga ra'yi ka duwan inuu qofku cabiro ama uu yidhaahdo waan kaa ra'yi duwanahay, waa taynu ku dhismayno oo waa tala wadaagga. ilaahay baa dadka fikirkooda kala duway. ceeb ma aha inay xisbiyadu kala duwanaadaan. waxaa ceeba inaynu qaranka wada dhisi weyno inagoo xisbiya ah. waxaa ceeba inaynu qaranka wada gutan weyno. beryahan waxaynu maqlaynaa dabayl ka socota Geeska Afrika oo la yidhi Afrika waa la isku daraya, Geeska Afrika nabad baa ka dhalatay. Soomaaliland wixii nabada way soo dhaweynaysaa, wixii iskaashanayana way soo dhaweynaysaa, in la is ixtiraamana way soo dhaweynaysaa. inamada xamare shalay jibcada quruma ka dhaxaysa Security Council-ka ka soo hadal qaadiyay Soomaaliya ee lahaa waa in la qabtaa waa go'doone. waxaanu u sheegaynaa fawarqayntu maray ka dheer baanu u maraynaa. ballanna waxaanu idinku qaadnay idinkoo yimaadaana xaqnimada wadata mooyaane inaynaa wada hadal badan ma suurtoobayso. Soomaali baa laysu keenayaa, waana ku tirnayaa kuma arkaayo. reerihii oo maanta hubkii gacanta ku haya
oo tigirka isu samaystay oo maalin qura boqol iska dilaya ama kuntaranba lixdan oo ciidanku aanu weerari karayn oonu lay karaynin da'da maanta u talisa reeraha ee aan duqayda maqlayn ee labadii iskhilaafaaba maalintii toban iska dilayaan ee nabadda marka la xidho ee la dhaarto ee dadkooda gurmada haddana maalintii bilaabaya waxaynu u baahan arrintaa inuu xal u helno horta waynu oo dhammaaday bankii aroori oo mashruuc weyn ahay waxay maanta u kordhinaysaa shaqaalaha hore burco waxaa 1770 maanta waxaan ku kordhinayaa 516 soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha ayaa waxa qayb lahaa mas'uuliyiinta gobolka Togdheer isagoo safarkani madaxweynuhu noqonayo midkii koowaad ee gobolka Togdheer uu ku yimaado tan iyo intii loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waa Fahmi Kaysixirsi Bulsha TV Burco.